sida diiran kalgacaltooyada leh walaaltinimada leh eheltinimada naloo soo dhaweeyey dareenka naloo muujiyey intaba waa ka mahad celinaynaa waxaanan leenahay gogoshaan allah ka dhigo gogol sharafeed oo guulaysata oo hadafkii laga lahaa ku guulaysata ilaahay ha ka dhigo runtii waxaan u arkaa inay tahay gogol xilligii loo baahnaa ku soo aaday waqtigeedii timid in la raadiyo nabad in la raadiyo in la ilaashado wixii la haystay ee lagu soo mitiday dalka laga soo maray dadka in la xasuusiyay qayb ka tahay in la yiraahdo wax kasta waxa ka muhiimsan soo jireenkii dadkan ay lahaayeen hadday tahay nidaam siyaasadeed hadday tahay mid dhaqan hadday tahay mid bulsho hadday tahay mid diineed in la ilaashado oo dadku aysan iska fadhinin oo haddii maaragtay siyaabo kala duwan dareenka loo cabiri jiray waxaa laga yaabaa in qof iyo keli iyo koox iyo xisbi loo cabirayay laakiin dareenkiioo wada jira in la cabiro waxay noqonaysaa fariin muhiim ah oo ciddii dee dhaga qabta dee ku dhacaysa dhagaheeda ayay noqonaysaa waxaana shirkan la keenay waa solidaritidaas iyada ah oo ah inaan ilaashano nabadda inaan ilaashano nidaamkii dimuqraadiga ee dalkan ka jiray oo dadkaanu bulshadaana ay u ahayd saldhig u ahayd iyaan rabnaa in la ilaaliyo in qoro isku dhiibkii sidiisii u socdo in nidaamkeennii dib u heshiisiinta iyo geedi socodka dhismaha dowladnimada Soomaaliya sideedii iyo wadadii uu haystay gaabis oo ahaa laakiin wadada in laga leexiyaan diidanahay gobasha waxa soo dhan ayay ka turjumaysaa waxay ka turjumaysaa aqli celin ku dhisan dib u heshiisiin iyo midnimo ka turjumaysaa taasaana bilowgeedii dhigteen dadkii mudnaa oo dhigi lahaana waa tihiin taas intaas ayaan ka leeyahay gobasha in la ilaaliyo mararka qaarkood adigoo wanaag ka shaqeynaya oo u jeeda inaad wanaag ka shaqeynaysaa waxa la leeyahay waxa loo rogi karaa warkaagii iyo wanaagaadii inuu yahay inuu soo wanaag ahayn loo rogi karaa waxaas waxa la yiraahdaa waa la isbarbagaama waa la isshataana saana u dhahay ciyaar xaafada marka waxaas in laga digtoonaaday waxa tahay oo gobasha aan laga been fariimin oo aan laga been sheegin waxaan arkay baraha bulshada isdhex socdaana waxyaalo kala duwan la aqrinayo hadda ka hor waxa la yiri nabiga kaleey salaam wuxuu yiri Amaar ibn Yaasir waxa dili doonto yiri fi abaaqiya dagaalkii markii waxa dhacay culimada aad u yaqaaneen Muawiya iyo Ali u dhaxeeyay Amaar waa dhintay markii ciidanka Ali oo ka tirsanaa waxaana dilay ciidankii Muawiya dilay Muawiya waxa la yiri nabiga kaleey salaam kala darantaa way cadahayo nabiga kaleey salaam wuxuu yiri Muawiya Amaar waxa dilaya qola gardaran aniga ma dilno dheer qoladii gurigiisa ka soo bixiso goobta dagaalka keentay aad disho dhahay inaad aqli badan oo hay daahiyada arab yiraahdo Muawiya ibn Sufyan marka anaga dib ma rabno dhibaatana ma rabno nabadaan rabnaa nidaam dimuqraadiyan rabnaa dib u heshiisiin rabnaa laakiin cid intaas diida dhibka ayada wada anaga ma wada ayada wada in la yiraahdo waxaanu madaxweynayaal ay joogaan oo qor isku dhiib nabada xukunkii talada ay ku wareejiyaan oo la yiraahdo lama wareejinayo dadkaanu dhibkaas ma leh gardaraasda ayada ma laha Soomaalina garnaqsiga waa u jeedaa ayadaana kala xukumi doonta oo kala xukmi doonta waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho oo u maleynay ajandayaasha shirkan inay ka tahay waa meel saarinta maqaamka magaalada Muqdisho waa muhiim magaalo 3 milyan oo shahay iyo ka badan oo aan maqaam lahayn walaysay nagu tahay walayskaasna in muddo aan soo haynay intaas ka badan lama xamili karo waa in ay shirkaanu waa in go'aan masiiri ah oo arintaas la xiriira oo shirkan ka yimaado taasna waa rajaynaynaa oo aan helno madax la xisaabtamo la doorto dadku ay la xisaabtamaan oo ay maqaam ku fadhiyaan madasha siyaasadeed Soomaaliya isugu imaanaysa u baahanahay deegaanka inay ka timaado taasna waxaan isleeyahay waa